kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada wararka midnimo media qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Kismaayo. Allahu naxariistay wariye Hodonaaleeyo oo ahayd qof qaran oo ku geeriyootay qaraxii iyo weerarkii si xigay ee ka dhacay magaalada Kismaayo iyo bulsho badan oo ka ilmeeyay geerideeda. musharax madaxweyne oo ka mid noqday dadkii lagu dilay weerarkii Kismaayo. ciidamada amniga Jubbaland oo soo afjaray weerarkii hotel Cascasay. magacyada qaar ka mid ah dadkii ku dhintay weerarkii Kismaayo ka dhacay. madaxweynaha Jubbaland oo booqday dadkii ku dhaawacmay weerarka ka dhacay magaalada Kismaayo. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka tacsiyeeyay muwaadiniinta ku nafwaayay weerarka ka dhacay Kismaayo. ra'iisul wasaare Khayre oo si adag u cambaareeyay weerarka lagu laayay dadka aan waxba galabsan ee Kismaayo ka dhacay. xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo si adag uga hadlay weerarka ka dhacay magaalada Kismaayo. qodobada aad daawateen waxa ay kuwa ugu muhiimsan warka warbaahinta midnimo media. haddii aad fadlan ku cusubtahay channelkeena subscribe dheh haatan u diyaar garooba qodobadaasi oo dhameystiran oo idin la socodsiiyo Axmed Xasan Suleymaan. mahadsanid Farax Cabdi Tarabbi. gabaldhicii shalay ayaa rag hubeysan oo ka tirsan al-shabaab waxay weerar ku bilowday qarax iyo mid toos ah ay ku qaadeen hotel Cascasay ee ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. weerarka oo qaatay saacado badan ayaa waxaa ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad iskugu jira wariyaal qurba joog, musharax madaxweynaha Jubbaland, ganacsade iyo dad shacab ah kuwaasi oo dhammaantood ku sugnaa hotelka. dadka ku dhintay weerarka ayaa waxaa ka mid ah wariye Hodonaaleeyo oo ahayd gabar si weyn loogu yaqiinay baraha bulshada kana timid dalka Canada. Fariid Jaamac oo isna ahaa sayga Hodonaaleeyo. Maxamed Cumar Sahal gacmo dheere oo wariye ahaa kaasi oo u shaqeynayay TV-ga SBC iyo Radio Ergo. sidoo kale dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray musharax madaxweynaha maamulka Jubbaland Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo maalmo ka hor tagay Kismaayo kana waday olole, iyo Mahad Xaaji Cabdillaahi Nuur garguurte oo ahaa nin ganacsade ah kaasi oo meedkiisa laga helay gudaha hotelka Cascasay. dad kale oo shacab ah isla markaana xilliga uu weerarka dhacay ku sugnaa gudaha hotelka ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan kuwaasi oo haatan lagu dabiibayo isbitaalka ku yaala magaalada Kismaayo. dhinaca kale ciidanka amniga Jubbaland ayaa soo badbaadiyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaano ka mid ah Jubbaland, siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo ku sugnaa hotelka. al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo waxaana weerarka la soo afjaray saacado ka hor kaasi oo qaatay saacado badan. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa booqday isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo halkaasi oo la geeyay dadkii ku dhaawacmay weerarka lagu qaaday hotelka Cascasay Madiina ee magaalada Kismaayo. madaxweynaha Jubbaland ayaa booqday qaybta gargaarka degdega ah oo shaqo adag ay ka hayeen dhaqaatiirta kala duwan. waxa uuna tacsi u diray dhammaan ehelada iyo qaraabada dadkii ku dhintay qaraxa isagoo caafimaad taam ah u rajeeyay dadka dhaawacyadu soo gaareen. waxaa kaloo madaxweynuhu u ballan qaaday in caafimaad dibadda ah loo qaadayo dadka aan xaaladooda dalka gudihiisa waxba looga qaban karin. ciidamada ammaanka ayuu ku ammaanay sida ay uga jawaabeen weerarka waxaana xusay in ay soo badbaadiyeen dad fara badan kuwaasi oo hotelka deganaa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi u diray qoysaska iyo ehelada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nafwaayay weerarkii argagixisnimo ee ka dhacay magaalada Kismaayo. madaxweynaha ayaa u rajeeyay dadka dhaawacyadu ay ka soo gaareen weerarkan arxan darrada ah inuu alle u boogadhayo isagoona xukuumadda federaalka Soomaaliya ku jeehayay in si degdeg ah ay gurmad caafimaad ugu fidiso dadka ay culus tahay xaaladooda caafimaad. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. weerarka argagixisnimo ee ka dhacay magaalada Kismaayo waxa uu muujinayaa yoolka cadowga dadka Soomaaliyeed oo salka ku haya in ay meel kasta ku gumaadaan hal doorkeena iyo guud ahaan dadkeena, ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu baaqay bulshada Jubbaland in ay xoojiyaan midnimadooda iyo wadajirkooda sina joogteeyaan la shaqeynta laamaha ammaanka si loo xaqiijiyo amniga guud ee deegaanada ay ku soo food leedahay doorashada madaxtinimo ee Jubbaland.
dhanka kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa cambaareeyey weerarka lagu qaaday dadka aan waxba galabsan ee ku sugnaa hotelka cascasey ee magaalada Kismaayo. ra-iisul wasaaraha ayaa tacsi tiraanyo leh u diray dhammaan ehelada iyo qoysaska ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday weerarka. ra-iisul wasaaraha ayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay garab istaagaan ciidamada qaranka ee ku howlan sugidda ammaanka guud ahaan dalka. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu si kulul uga hadlay weerarka lagu qaaday hotelka cascasey ee ku yaala magaalada Kismaayo. xasan sheekh ayaa waxa uu sheegay in aad uga murugaysan yahay dhibaatada ka dhacday Kismaayo, waxa uuna tilmaamay in halkaasi lagu dilay dad Soomaaliyeed oo waxgal u ah bulshada. sidoo kale waxa uu tacsi tiraanyo leh u diray dhammaan ehelada dadkii ku geeriyooday weerarkaasi isla markaana kuwii ku dhaawacmay ayuu Ilaahay uga baryay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. guud ahaan daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dal idaafaca caalamka inaga soo gaaray oo aad kala socoteen Midnimo Media. waxaana warka idinla socodsiinayay anigoo Axmed Xasan Ramaas. tan iyo kulan dambe daawadayaal, nabadgelyo.